وصوص أنا غير تاعي أنا قال هذه شنبغي مستغنغي هذا سوتي كان اسمه أقصى ما نزع كان سكاسر عن لو فايرستا أنا هذه ركوا بلد سدح البركس كرو لا سدح نقاس كبل وقتي هذا كان تاس أتاريس بس ولا سكوبا ده تاي ده تعبوا زي بعشة قبل degdeg kusoo dhawaada saaxiibayaal warbixin kooban aan iga hayno wiil Soomaaliyeed oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab moolkiisa ayaa laga dhex xiray baba macmala taasoo ay ciidamada amniga fashiliyeen soo qabashadiisa 14 July 2014 haddana 18 April 2018 ayaa la sii daayay markii soo dhameystay xadhigiisa oo magaciisa saddexan yahay Mustaf Maxamed Xuseen oo magaciisa afka garashada uu yahay Abu Abdullah intaasi umay noqon halis soo wajahday noloshiisa balse dib ayuu ugu laabtay kooxdiisa Al-Shabaab bal ha inoo sharaxo Sandere sida uu gaadhiga qaraxa loogu dhigay balse ayaan darro wuxuu arkay fiideo ay duubtay kaamirada qarsoon kaasoo isagoo ku xiraya Mimbo Facebookisa wuxuu taas uu dhan ka dambeeyay ciidamada amniga markaas oo uu Abu Abdullah ku fashilmay qaraxyo kale inuu dhigo sanadkii la soo dhaafay dhamaadkii 2019 bishii May wali lama oofin Mustafa Cabdi qaraxa uu ku xiray gaadhiga ee degmada Wadajir ninkan Abu Mustafa qaraxa umuu dhigi jirin cida la qolo ah wiil kale oo lagu magacaabo Maxamed Muxsin ayaa ahaa hagaha Abu Abdullah taasoo isla xaadirkan la baadi goobayo labadan eedaysane ayaa si wada jira ugu biiray kooxda Al-Shabaab iyagoo deganaa isla waqti xaadirka deegaanka Buurdhuxulo oo ka tirsan gobolka Bakool sanadkii 2010 horaantiisii bishan ay sida wada jira ayaa loo soo gabagabeeyay walina xukun labada nin oo wali mid maqan yahay maanta ayay maxkamadda ka soo saartay gaashaanle sare Xasan Ali Shuute Farax Day gudoomiyaha maxkamadda koowaad ee darajada sare ee ciidamada qalabka sida daawadayaal halkani waa kanaalka xog bixinta wararka fadlan ku soo biir oo subscribe saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiiso leh aan halkan soo galino waxa kale oo naga xasuusina inaad la sii wadaagi karto asxaabtaada waad ku mahadsantahay daawada muuqaalka daawashadiisa